بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعبتك سوى دواد الجنال كيغا عصب وانجينير او رجيار سيدا هوريدين كاقبالان قادي وحان بران دونا برشاد الفيديو اديتينكا انا استعمالين سوفتوير كادوب افتر افكت او سوفتوير اد وناكسن كونا وناكسن اديتينكا ايو عيالي لميدكا ما انتنا وحان قادين دونا 10 بيزيك او كسابسن sideen u isticmaalnaa software-ka iyo waxyaalaha ka kooban yahay iyo paneliska aan isticmaalayno marka video-ga inaan dheereeyo marabo muhiimadeena casharkeena maanta waxaan qaadan doonaa software-ka lagu magacaabo Adobe After Effects waxaad ka heli kartaa company-ga Microsoft Adobe Desktop Applications-ka website-kan ayaa booqo doonta oo lagu magacaabo www.adobe/application.com company-gan wuxuu soo saaraa sida Adobe Photoshop taqaaniin Adobe Illustrator Adobe InDesign waa badan yihiin ilaa iyo application aad u fara badan oo Adobe soo saarto ayuu ka mid yahay application Adobe After Effects marka waxaan u gudageli doonaa casharkeena interface wuxuu u soo muuqan doonaa sida tan aad u jeediin qaybtan oo bidixda xigto waxaa lagu magacaabaa qaybta aad soo gashan doontid project-ga wuxuu ka kooban yahay ama waxyaalaha habeen doontid video-ga example hadduu yahay layers ayaa sameyn doontaa layers waxaa u baahanaa waa naqaanaa image kala saarayo dhanka leftiga ayaad soo gelin doontaa sida loo soo gelina casharada dambe ayaan ku qaadan doonaa qaybta marka waxaa lagu talagalay wax kastoo ka kooban yahay project-ga inaad si temporary u sii dhigatid as a table waa marka sida miis ahaan panel-kan xiga waxaa lagu magacaabaa composition-ku waa waxa dhan ee project-ga uu ka kooban yahay sida background-iska ad example markaan video edit gareyno first waxaan u baahanahay background sida text-gan meesha kasoo muuqan lahay ama frame yara u baahannahay oo video-gan ku edit gareen marka composition-ka waxaa lagu magacaabaa qaybtan kale oo video-ga meesha kasoo muuqan lahay interface-kiisa panel-kan hoosesan waxaa lagu magacaabaa waa panel-ki shaqada marka table-kan kasoo qaadid adigoo sameynaya drag and dropping ayaad waxaa keeni doontaa panel-kan automatic wuxuu kasoo muuqan doonaa composition-ka oo ah barti video-ga la dhigi lahay kanna waa naqaana waa timeline-ki oo time-kaaga halaad ugu talagashay hadduu yahay 1 daqiiqo hadduu yahay 5 daqiiqo 10 daqiiqo hours marka insha Allah maanta waxaan abuuri doonaa hal composition waxaana soo gelin doonaa text-gaas ayaan ku sameyn doonaa effects ama qurxin doonaa anagoo rabin inuu video iga dheeraado marka asxaabay waxaa noo haray kan waxaa dhahay waa table waa fast meesha soo gelin lahayd adigoo isticmaal right click import kanna waxaa lagu magacaabaa composition-ka waa barti la dhigi lahay background-iskaaga iyo waxyaalaha video-ga ka koobnaa hadduu yahay layer-kiisoo kaleeto image-kaaga iyo text-yada meesha la dhigi lahaa halkaanna waa meeshi table-kan waxa inta ku yaala ayaa inta keenaysa adigoo sameynaya drag and dropping markaas inta ay ku sii daanaysa automatic wuxuu ka soo muuqan doonaa meesha kana waa timeline-ka ayaa dhahan asxaabi waxaa noo soo haray toolska aan isticmaalayno mouse tool-ka aan naqaano iyo hand tool zooming text tool rectangle tool marka toolskanna waa laga maarmaan waa loo baahan yahay siday u shaqeeyaan waad arki doontaa insha Allah marka sidaan ku abuuri karnaa composition dhankan right-ka after aan u gudagalo dhankan right-ka waa meeshii formatting-ka waxa lagu magacaabo qurxinti meeshii ku jireen si text-yada example text-ya inta noo yaal text-ya sidaan ku qurxin karnaa font size-ki width-ki italic miya bold ma ka dhigaysaa color-ki font-ki waxyaalahaas ay marka meeshan ka isticmaali doontaa hadaan u baahannahay effects waan soo gashay karnaa effects ayaan dooran doonaa ka bacdi image ma effect ku sameyn doontaa waxyaalahaas marka casharada dambe ayaan ku qaadan doonaa asxaabi haatan soo koobi karno
marka si aad composition ugu abuurtid laba step oo sameyn kartaa. waxa ugu fudud stepka inaad martid waxaad tagaysaa composition then new composition ayaad dooranaysaa. magac u baxsan ayuu ku dhaha magac waxaan u baxsanaynaa composition one oo kale. then meeshan waa meesha ugu muhiimsan inaad bartid duration timekaaga oo timelineka kasoo muuqan doonto. hadda waxaa ii dooran 1 daqiiqo iyo 5 second. marka godkan koowaad waa hourka ayuu sheegaya. meeshaas hadaa wax ku dhigtid 1 ama 2 hours ayay u dhigmataa. marka seconds hadaa rabtid ama daqiiqada hadaa rabtid minute-ka ku xigo second ku xigo nano second ku xigo. marka asxaabi iskaga ka qaldamin markasta waxaad ka bilaabaysaa leerka labaad hadaa rabtid minute inta minute aad rabtid ayaa gelin doonta insha Allah. waxaa ku soo xiga second sekimada raacsiinaysaa. marka video wuxuu socon doonaa 1 daqiiqo iyo 5 second. videoga wuxuu socon doonaa 1 daqiiqo iyo 10 second. wuxuu socon doonaa 10 daqiiqo. marka minute daad hadda example 10 daqiiqo ayaa gelin doonaa. waxaa tiri doonaa 0 10 minute iyo 5 second. waan bedeli doonaa 5 second 5 minute 5 second ay noqon doontaa. waa bedeli doonaa 1 minute 5 second. marka backgroundka laba baa sameyn kartaa inaad backgroundkan dooratid kalarka harta u xulatid. ana waxaan jeclahay dark blue waxa loo yaqaano. dan okay aad doontaa. dan waa ka bixi doontaa okay. automatic waxaad arki doontaa compositionkaaga area aad shaqada ku qabsan lahayd. marka waxaan soo gelin doonaa text anaga isticmaalayno toolska. haddaa inta ka waasid waxaa usoo muujin kartaa dhammaan panelskan hadday kaa qarsoomaan timelineka waxaad kasoo muujin kartaa window ayaad tegaysaa dan tigta ayaa saaraysaa. example hadda compositionka ayaa qarin doonaa oo iga qarsoon. example composition ayaa raadinaya dan waa kana composition one automatic waa qari. marka cilada ay ku qabsan doontaa marka asdiin cilada ay ku qabsatay waxa ka sii doontaa window oo soo muujin doonta calaamad tigta ayaa saaraysaa. marka asxaabi frame-kan size-kiisa ama markaad isticmaalaysid automatic inta ayaa laga doortaa. fit waa ka dhigi kartaa fitka ugu wanaagsan balse aniga waxaan jeclahay inaan ka dhigto 3.3% yaa badanaa ku edit garaya. also waxaa ka dhigi kartaa fit. marka asxaabi maanta inaan cashirka dheereey mar waxaan ku xijin doonaa text ayaa soo qaadaysaa adigoo isticmaalay toolskan. hadda textiga example wuu kaa qarsami karaa asaga waa kana textiga tools ayaa ku qoran automatic wuu kaa qarsan balse ku soo muujin kartaa asaga ayaa tigida tools automatic wuu ku soo muuqanay. markaas dhig marka shay kasta inta ka waasid waxaa ka soo muujin kartaa window. taasna isla garanay. marka stepka xiga text aan rabnaa inaan soo gelino projectigan. text ayaa ku dhufanayna waxaan ku qoraynaa automatic waxaan bedeli doonaa waa 10 basic oo ku saabsan barashada video editing. marka asxaabi hala yaabin textiga ana hore ugu dhigisaan balse waa bedeli kartaa. markaa bedelayso waxaa isticmaalaysaa mustulad waa laga maarmaan. textiga meesha hartina dhigatid right left right center. marka textigan inaa ka bedelnaa formatting. hadda waa afar waaweyn oo laba kala isugu jirto toggle iyo front color. marka si aan u bedelno ku waxaad dooran doonaa textigi meesha aan ku dhufan doonaa calaamadda kansarka
dan highlight ayaa saari doontaa, dan waxaa soo character ayaa lagu magacaabaa. marka formatting meesha laga bedelo character ayaa tegi doonaa. marka layerskan caadi waa isqarin karaan, kor ayaa gii kartaa, markasta midka u baahanta adiga ayaa soo kor marinaysaa. marka kalarka koowaad ii saaran sida adana highlightka waa cyan, kalarka lagu magacaabo waa kana, backgroundkana waa yellow. si aan u bedelo la colorska kan koowaad waxaan ka dhigayaa red, strogalkana nan ayaa dhahay ma u weynayo. marka farteena waa kaasa, qaabkaas ayaa textiga lagu soo geliyaa. textiga inaad weynaysa hadaa rabtid waad dooranaysaa, dan adigoo isticmaalayo click iyo muuska adigoo isticmaalaya waxaad dhankaas u jiidaysaa. haddaad soo celisidna waa soo yaraanaysaa. automatic inta ayaa furi doontaa comboboxkan, dan waad dooran doontaa sidaaskaa rabtid. marka labadaas baa ku samey kartaa. marka asxaabi video ayaa ugu dheeraaday, marka next time insha Allah waxaan rajeynayaa casharka xiga inaad ku bari doontid sida loo soo geliyo. waxaan sameyn doonaa lyrics, qaabka loo sameeyo ee lagu sameeyo fartan effect loona qurxiyo ayaan sameyn doonaa insha Allah. marka haddaad channel ku